وادين سلام أصحابتي ما أنتم حايدين ولا تحنا وصفتحنين ما أنتم حوكوا بلاونيا وحن برنينا نكان ولوما عم مسترهان وحن سمعدي سويدنا عملة ما أنت سمعدي سمحي كل سامات وحن لكل مساقفات هراء ولا كل أنتي أن كلام حن برنينا الترشيد إنه لوما عوداني وحن كيف يفني سكبتي وحن كبوحني ساقلين هذا وحن أركينا قول لوما عونجي وحن كسودري ساير ورك وحن سودونا يعني هذا أنت كدي وحن أركينا نجي وجوكت شركة لوما عن سامبوكس كدي وحن برنينا ويل لوما عوكين ينسون وحن سؤال ويدنا نجي وحن كدايا مع فرصة كومنتي وحن بهلبو سوقرية waxay dhaysahaa waxa jiraan dad badan oo nacab waxaasna waa iska caadi kadib waxa microphone qabsanaystaan waxaan su'aal weydiinaysaa ninjay waxaan ku dhahaysaa waligaa ma ka shilaysay go'aan aad hore u qaadatay ninjay waxay dhahaysaa bini'aadam ayaa tahay marka qaarna waa loo baahan yahay inaad go'aan qaadatid kadib waxa uu laabanayna tooshan sano ka hor waxaan arkaynaa ninjay iyo daaniyo yarida waxaan isku qiilinay hooyadoodii waxay aabood ugu qiilinaysaa markasta waa shaqaysi waa iska casilaysaa waraaqadan saxiix gurigaan isaga taas wax dhanba ayaa la gaaraya waxaan arkaynaa ninjay iyo daaniyo oo jooga maqaaxida iyadooda waxay waraaqad siinaysaa ninjay waxayna ku dhahaysaa wiilkaas halkaas taagan ayuu ka dhiibay ninjay waxay dhahaysaa iska tuur wiilashan way baxayaan kadibna ayay waxay arkaysaa wiil halkaas taagan waxayna ku dhahaysaa maxaan ku siiyaa isagan wuxuu dhahay wuxuu u baahan wiilka tagayaa kadib ninjay waxay arkaysaa aabood oo bad sii raacayo waxayna daaniyo ku dhahaysaa daaniyo aabba ayaan dabagalaynaa kadibna way soo dabagalayaan waxayna imaanayaan meeshuu aabood ka shaqaynaya waxayna arkayaan aabood oo la garaacayo daaniyo idinta ay isku celin weynaysaa ayadoo wixii rabto waxaa afka qabanaysa ninjay kadib habeenku markay guriga yimaadaan waxay hooyadooda u sheegayaan wixii ay maanta soo arkeen daaniyo ninjay waxay hooyadooda ka baryayeen inay aabahooda iska dayso si uu ganacsi shakhsiyadeed u abuurto kadibna waxaa imaanaya aabahooda wuxuu xaaskiis ku dhahayaa waan kala tegaynaa ilmihiisan weyna xayaan kadibna waxay soo jeesanaysaa gabdhaheeda waxayna ku dhahaysaa gabdhaheyga anima ay raacaysa mise aabihiina suusaa kadib daaniyo waxay ninjay ku dhahaysaa go-aankaad aad maalintaas qaadatay ma ka shalaysay ninjay waxay dhahaysaa haa baniaadam ayaan ahay laakiin qof kale go-aankuu qaatay ma ka shilaayay daaniin waxay dhahaysaa go-aamo aan laga shilaynin ayaa jiro kadib waxaan gelaynaa xasuusta oo 5 sano ka hor wiilka iyada wacaysay wuxuu ahaa mastarhaan kadib mastarhaan wuu soo baxay si uu guri u kiraysto wakiilaan wuxuu ku dhahay deposit kale kun waaye meeqaayad xarunta agoonta kasoo qaatay haana wuxuu dhahayaa waxaan kasoo qaatay 2,000 dhanka ay soo baxeen wakiilaan wuxuu arkaya boorka uu wato inay 100 milyan ku qoran tahay wakiilaan uu naxay wuxuu dhahay 100 milyan miya kusoo guuleystay lacagtaada ganacsi ku samayso sarhaan uu soo tagay asoo roob ku taagan waxa gadaashiis kale islaam waayela way soo dhawaanaysaa waxayna ku dhahaysaa haddii aadan guri aadan seexan haysanin waxaad seexan kartaa dukaankay furaan wuxuu ku jira dhanka ay guriga shimbirka dibna uu soo baxay wuxuu soo galay dukaanka wuxuu arkay cunto diyaarsan uu cunayaa wuxuu arkay gasac lacag ku jirto oo meesha yaalo subax dambe waxaan aragnaa ayeeyada waxaan soo xasuusnaysaa gasac lacag ku jirto inay dukaanka uu soo tagtay kadibna way soo cararaysaa waxayna arkaysaa inay lacagteeda ugu jirto waxa gadaasheeda ka hadlaya mastarhaan wuxuu ku dhahayaa lacagtaada banki u samayso oo ku shubo kadibna banki ayay imaanayaan lacagteeda waxaa loogu shubayaa banki markay soo baxaan waxay kaarku dhiibaysaa mastarhaan waxayna ku dhahaysaa kaarkan iyo asagana wuxuu dhahay maka baqaysmiya inaa lacagtaada kaa xado basfirka waan aqaana iyadana waxay dhahaysaa haddii aad iga xagga aniga ayaa seedeynaya sababtoo ah qof xun aniga aaminay kadib maalin isagoo gurigiisa soo socdo daaniyo hortiisa socdo daaniyo ayay kusoo jeesnaysa waxayna ku dhahaysaa maalinkaas maxaa iisoo dabagasha aniga ay xaalada igu xuntahay ee iga har way kasoo cararaysaa waxayna raabkiinaysaa ayeeyadeeda waxayna ku dhahaysaa hooyo aabay kala tagay ninjayna waxay raacday hooyanay keli ayaan noqday ayeeyadeena qalbi ayay u qaboojinaysaa waxayna ku dhahaysaa gabadheyda aniga ayaa kula jiro kadib waxaa kor dheer ka arkaya mastarhaan ayeeyada markay gudaha soo gasho waxay mastarhaan ku dhahaysaa wiilkayga waxaan rabaa inaad gabadheyda qoraa jecel aad u qortid si ay u dareento deganaan ugu qorayaa daaniin markay aragtay waraaqada waxay u imaanaysaa aabaheeda wayna tusinaysaa waxayna dhahaysaa waraaqa jecel ayaa laisoo qoray iyadana waraaqada ay soo qoraysaa waxayna usoo dhiibaysaa aabaheeda wuxuu keenaya hooyadiisa wuuna dhiibayaa wuxuuna ku dhahayaa hooy waan ogahay inaad waraaqadan adiga soo dirtay hooyadiisana waxay dhahaysaa daaniin miya ogaad asagana wuxuu dhahayaa ka cabsan daaniin ma ku ogaanin anigoo keliya ayaa og daaniin iyo ninjayni markas way kulmi jireen daaniin waxaa markas waraaqada usoo qori jiray mastarhaan ayadana way u qori jirtay maalin daaniin iyo ninjay soo daaniin waxay sanduuq siinaysaa ninjay kaas oo ah mid ay ninjay guriga ku ilmaamtay kadibna ninjay waxay daaniin ku dhahaysaa daaniin hooyo nin ayay guursatay anii hooyan waxaan u socnaa ameerika ninkaa shaqadiisan waxaa loo wareejiyey ameerika daaniin waxay dhahaysaa maxaad hooyo ugu reebi weysay ninjayna waxay dhahaysaa adeerkaas cusub wuxuu baray sida nolosha loogu raaxaysto kadib waxay daaniin siinaysaa sanduuqa ay u keentay waxaan dhahaysaa aniga uma baani adiga qaado suusaa kadib waxaan arkaynaa daaniin iyo ninjay oo soo fadhiyaan ninjay waxay daaniin ka wareysnaysaa xaalada iyo daaniin waxay dhahaysaa way fiican tahay ninjay waxay dhahaysaa ilaad guri ayay miyaa ku nooshahay daaniin waxay dhahaysaa dadka hore adiga camal miyaa u maraysaa adeerkaa lacagtiisa ayaa ganacsi ku bilaabatay ninjayna waxay dhahaysaa ganacsi aad leedahay inaad furtidaad ayay u adag tahay ninjayna waxay dhahaysaa ma ku fikirtay inaad ganacsi bilaawtid daaniin waxay dhahaysaa haa waxaan igu jirnaan duusaan kadibna waxay u sheegaysaa inuu yahay kii yaraanta u sheekaysan jiray ninjayna waxay ku dhahaysaa ilaa hadda ma u socteen iyadana waxay ku dhahaysaa haa mar badan ayaa wada kulanay ninjayna waxay daaniin ku dhahaysaa kambanigayga jimca wuxuu leeyahay munaasabad weyn waxaan rajeynayaa in adiyo naam duusaan aad dhimaataan daaniin waxay dhahaysaa waan ka fikirayaa kadib ninjay waxay daaniin ku dhahaysaa aniga go-aankaan qaatay waa ku faraxsanay waan ogahay inaan guri ayay ku nooshahay qabtaan xaggaas ay ka jeexan tahay waxaadna ku buuxisay qalin kadibna way ka tegaysaa daaniin way kasoo dawagalaysaa
waxaan ku dhaysaa waa balan aniga naamduusaan ugu socnina xafladaada imaan doono kadib daalni markay bas kasoo degto madaxa ay bir ku garaacanaysaa ayadoo islaaleysan waxay dhaysaa aniga go-aankan qaatay waan ku saxsanahay gabayadoo qaynaysa waxaa kordheerka arkaya Mr. Han intaa kadib baska ay imaana weyna koraysaa isagana wuu soo dabagelayaa waxay imaanaysaa maqaaxida ayeedeeda waxaana ayeedeeda ku dhaysaa ayay waxaan rabaa inaan kala hadla arrimaha naamduusaan isaga miigu dhihin oo mar ayaan la kulmay ayay waxaan rabaa inaan hal mar la kulmo ayeedeedin waxay dhaysaa arrintaas oo 5 sano kahor ayay ahayd iskiilo dib waxaa arkaya Mr. Han wuxuuna ka leeyahay xasuusta oo 5 sano kahor wuxuu kiraysan guri markii gurigan waxay ku dhahaysaa hooyada iyo aabaa aad ay ka fikireen sababtoo gurigan ay ku kireynayaan isagna wuxuu dhahay hooyo aabii ma noola dhankan waxaan aragnaa daalni ayeedeeda waxay nimaanaysaa bangiga si ay lacagteedu sarifato gabadha bangi fadhisan waxay dhahaysaa bangigaaga waxaa ku jira 80 milyan ayadana way naxaysaa waxay dhahaysaa kullii sarif kadib Mr. Han wuxuu imaanayaa bangiga wuxuuna rabay inuu lacag baxsado wuxuu ogaanayaa in bangigiisa aysan lacag ku jirin kadib wuu soo cararaya wuxuu kordheer ka arkaya daalni ayeedeeda oo lacag siinaysa wiilkeeda intaa kadib waxaa socday daalni aabeeda wuuna baxayaa intuu wadada ku jiro wuxuu galayaa shil nin gaari ku dhufto wuxuu dhahay isbitaal ayaan keenaya isagana wuxuu dhahay waan fiicanahay kadibna wuxuu imaanayaa shirkadda xasuusta kadib waxaan aragnaa Mr. Han iyo ayeedeeda oo san fadhiyaan Mr. Han wuxuu ayeeda ku dhahayaa lacagtii aad istaysay lawjibaarkeeda ayaan ku siinayaa iyadana waxay dhahaysaa lacagtaas teedmeynay taada ayeed isagana wuxuu dhahay haddii aad garbigaaga bahdo waad soo bixi kartaa wuxuun siinayaa kaarkiisa kadib ayeeda guri markay imaad waxay arkaysaa daalni uu raadinaysa qofku uu yahay naamduusaan daalni waxay dhahaysaa ayay marow inay injo iyo guulaysto waxaan rabaa inaan tusiyo inaan go-aan saxan qaatay habeenkaas wuxuu Mr. Han asagoo shaqadiisa jooga wuxuu gacanyariis u sheegaya inuu qof banaanka u taagan yahay Mr. Han wuxuu dhahay aniga balanlaan qof lama kulmo gacanyariisan wuxuu ku dhahay qof banaanka jooga wuxuu wataa kaarkaaga isagana isla markuu soo baxaya wuxuu u imaanayaa daalni ayeedeeda ayadana waxay ku dhahaysaa cuntadan ayaan kuu keenay waxaan rabay inaan wax ka codsado isagana wuxuu dhahay iga codsi iyadana waxay dhahaysaa waxaan rabaa inaad ilaalisid naamduusaan isagana wuu naxaya wuxuuna dhahayaa wiil kasta oo 5 sano kahor ayay ahayd arrintiisa haddana meel kuma sheegna ayeedana waxay dhahaysaa baab sababta aan kuugu imaaday kadibna waxay u sheegaysaa inay gabadheeda wiilal badan u balmisay si ay naamduusaan u hilmaamto laakiin markasta waxay usoo hadaqaadi jirtay naamduusaan isagana wuxuu dhahayaa ta 5 sano maxaa u sheegaysa daan xamili karin iyadana waxay dhahaysaa adiga xataa waa weli jirtay kadibna wuxuu dhahayaa waan ku caawinaya iyadana haya ayay dhahaysaa wayna ka tegaysaa subaxdan waxaan abnaanjiya iyo daalni oo dug soo kacay wayna soo diyaarinaya waxay soo aadayaan dhanka iyo shaqadooda daalni waxa uu wacay saaxiibteeda waxayna ku dhahaysaa meesha muuq badan ayaa ka jiro haddii aad hal shay dhiibato waxa lagu bedelayaa shay kale daalni waxay dhahaysaa fursadeeda waan ka faa'iidaysanayaa dhankan waxaan abnaanjiya iyo hooyadeeda waxay gabar shaqaalaha hotel ka mid ah ku dhahaysaa muddo badan hooyadeeda ma arkin 30 daqiiqo aysan fadhin mobile ay ku mashquulsan tahay jiin waxay shaqaalad ku dhahaysaa gurigeeda inta ay markaas hotel jiifanaysaa qaadan waxay dhahaysaa caadi oo fasaxeed inta ku qaadato wayna ka tegaysaa dhankan waxaan arnaa daalni waxay nimaanaysaa maqaaxida waxay kastamar ku daaraysaa hees ay buuq u yareeyaan waxay dhahaysaa leen leer gala si aan si fiican idinku adeegno leen ay gelayaan wayna ku farxeen sida quruxda badan oo loo adeegayo ay shaqada soo dhan dadka dhan way u wada hambalyeynayaan sida quruxda badan ay kastamar ku qancisay maamad ka sareysan waxay ku dhahaysaa waxaa shaqayn doontaa kadib full time dibin shaqadeeda ay gelaysaa dhankan waxaan adnaa Nje iyo hooyadeeda Nje waxay dhahaysaa lacagtan aad ku dhaxaysnayso waxaa iska leh aabahay Nje hooyadeeda waxay dhahaysaa aabaha wuu qiyaamay adoog inuu qiyaamay aw sii danaanaysaa Nje waxay dhahaysaa aabahay wax kasta ayuu ku siiyay adin markas ku jisaarta kadib waxay u sheegaysaa inay leedahay munaasabad ay u qabanayso shirkadeeda jimcaha soo socda iyadana waxay ku dhahaysaa maxaa iga galay Nje waxay dhahaysaa waxaa imaanaysa daalni iyadana way naxaysaa waxay dhahaysaa waan imaanayaa kadib habeenka waxaan aragnaa Mr. Han iyo gacanyariisa Mr. Han wuxuu gacanyariis ku dhahayaa waxaad ii dhahaysaa nin lagu magacaabo naamduusaan kadib wuxuu dhiibaya sawirka naamduusaan oo yariisa gacanyariisan wuxuu dhahay qof saan u yar oo hadda weynaaseen ku raadin karaa kadib wuxuu magaca naamduusaan ku arkaya kombiyuutarkiisa wuxuuna ku dhahay mar badan oo shaqo soo codsaday kadib waxaan arkaynaa naamduusaan iyo asxaabtiisa naamduusaan wuxuu saaxiibkiis ku dhahayaa waxaan rabaa inaan flight noo bukan gareeyo waqti waxaa taagan yahay abaalmarinta koodi baraasada bixinta waxaan laga bixinayaa San Francisco markasta man soo maraa inaa ka faa'iidaysano waaye waxay ogaanayaan inay naamduusaan waalidiintiisa maalin nalka ay dibna wayna isqarinayaan naamduusaan waalidiintiisa way imaanayaan markii ay ka fiiriyaan way weynayaan ayagoo soo baxay waxaa soo dhaca taleefanka naamduusaan xalqadan koowaad halkaas ay noo egtahay waa ku mahadsantahay daawashadaada bye bye